something I'm giving up on you. si ay kuu soo gaadhaan waxyaabahan soo gelina daawadeen fadlan taabo subscribe isla markaana riix calaamadda gambaleelka. Assalaamu calaykum daawadayaal. Halkan waxaan kaga warami doonaa robotka Sophia. Waxaa laga yaabaa dad badan oo daawanaya inaanay fahmayn macnaha robot. Robot waa aalad la borograamiyay isla markaana laga dhigay casri oo u shaqeynaysa sida bini'aadamka. Isla markaana qabata shaqooyin badan oo ay qabataan iminka bini'aadamku. Noocyadooda oo ah inaan ka hadlno robotka ugu caansan ugu maskaxda badan robotyada adduunka. Haddaba waa kuma robotka Sophia? Muxuu kaga duwan yahay robotyada kale? Sidoo kale muxuuna ku soo jiitay adduunka ama indhaha caalamka? Robotka Sophia waxaa sameeyay shirkadda Hanson Robotics oo ku taala magaalada Hong Kong. Ugu horreyn wuxuu ka bilaabmay shaatirkeedii ama ka soo muuqashadeedii indhaha caalamka 2016. Ka soo muuqashadeedii caalamka kadib waxay noqotay mid ka mid ah shakhsiyaadka warbaahinta qaramada midoobay waxaanay ka soo muuqatay showga Jimmy Fallon Show. Haddaba robotkan ayaa waxa uu awood u leeyahay inuu hadlo ana aqoonsadana wajigaaga una socdo masaafo aad u dheer waxaana loo ogeysiyay bini'aadanka gaar ahaan dhediga. You were on the show before. It has been exactly 575 days since I last saw you. Haddaba arrintii dad badan oo aan garanayn robotkan ay ku barteen waxay ahayd markii uu Sacuudigu ku dhawaaqay 2017 inuu siiyay kaarka aqoonsiga amba dhalashada. Sidaasi ayaanu robotkani ku noqday muwaadin Sacuudiya. Sacuudiguna uu noqday dalkii koobaad ee aqoonsada robot. Haddaba robotkan ayaa ka hadlay qaadashadiisa kaarka aqoonsiga waxaanu yidhi sida tan: sharaf ayay ii tahay gaar ah. Tani waa taariikh robotkii ugu horeeyay kaas oo loo aqoonsan yahay muwaadin. Iyadoo hadalkeeda sii wadata ayaa waxay sheegtay inay leedahay hal walaal oo ka yar. Yes, I have a little sister.